maamulka gobolka Hawd ayaa maanta gubay bacako tarabaan ah oo ay dhawaan ciidanka booliska Soomaaliland ee gobolka Hawd gacanta ku soo dhigeen iyaga oo qaab qarsoodiya loo soo gelinaya gudaha dalka bacahaasi oo ay hore dawladda Soomaaliland dalka uga mamnuucday soo dejinta iyo ka ganacsiga bacaha kala duwan. Bacahan la gubay oo ahaa nooca loo yaqaan miikada ayaa tiradooda guud dhamayd 254 kartoon waxayna maxkamadda gobol degmo ee gobolka Hawd bacahaasi ku xukuntay in guud ahaan la gubo. waxaana goobtaasi lagu gubay bacahaasi goob joog ka ahaa barasaabka gobolka Hawd Axmed Yaasiin Maxamed Faarax. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay xubno ay kamid ahaayeen gudoomiyaha maxkamadda gobol degmo ee gobolka Hawd Sheekh Cabdilaahi Maxamuud Aw Cabdi, taliyaha qaybta ee ciidanka booliska ee gobolka Hawd gaashaanle sare Cali Ismaaciil Faarax, agaasimaha waaxda kastamada ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland iyo maamulaha kastamka ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ee gobolka Hawd iyo xeer ilaaliyaha gobolka Hawd. bixii hore waxay ahaayeen 490 bay ahaayeen, bacahan damana waxay ahaayeen 160 bay ahaayeen, isu geyntoodii waxay noqonayaan 254 bay noqonayaan. sidaas ay ku gubteen bacahaas oo ay maanta maxkamaddu xukuntay 254 kartoon weeyaan tiradooda guud. bacahaasi dhammaan sida arkaysaan way gubteen. aad waxaan ugu mahad celinaynaa mas'uuliyiinta gobolka Hawd oo hawshan gacan buuxda naga siiyay runtii. bacahaas oo ay soo qabteen ciidanka dulbataariyada iyo ciidanka qaybta biliiska ee gobolka Hawd waxa weeye Ilaahay maadii maxkamaddu way xukumeen. saasa waajibka maanta aanu ku fulinay waxaanu fulin lagu sameeyay bicihii yaalay balligubadle bacdaasi oo aan ka soo qabanay meel u dhaxaysa Hargeysa iyo balligubadle dhexdeeda. waxaanu leenahay maanta laga bilaabo iyo inaan iskugu imanin haba yaraatee wax kontrabaada iyo bacda iyo waxyaabaha ee dalkeena dhibaatada u keenaya. waxaanu samayn doonaa sida aanu maanta taa u gubnay ayaanu tu kasta oo aanu soo qabanno u gubi doonaa. maanta waxaanu goobjoog ka nahay ka xafiis ahaan anoo xeelaalihii gobolka ah oo maanta maxkamadda kala soo qayb galnay fulinta xukunadii ay maxkamaddu hore ugu riday eedaysanayaasha ee kontrabaanka ee ahaa bacahaas oo cadadkoodu dhan yahay 254. maanta waxaanu fulinaynaa oo halkan u joognaa fulintoodii. gabagabadii waxaa halkaasi hadalla mahadnaq iyo dardaaran bay iskugu jira ka jeediyay barasaabka gobolka Hawd Axmed Yaasiin Maxamed Faarax. maanta goobtan aan joogno waxaan ku gubaynaa bicihii aan qabanay ee dalka iyo deegaankaba ka mamnuuc ahaa. qof kasta oo isku daya inuu keenana gacan bira lagu qaban doonaa haddii la yiraahdo. waxaan aad uga mahad celinayaa ciidanka turbatariyada iyo ciidanka gobolka Hawd ee booliska oo gacan weyn ka geystay soo qabashadii ay soo qabanayeen hawshaas. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. shaqo wanaagsan baan leeyahay. sharcigu cid kasta waa ka sareeya. wax kasta oo dalka ka mamnuuca cidda isku dayda inay keento gacan bira lagu qaban doonaa, sharcigana waa la horgeyn doonaa. waa digreeto madaxweyne waxa laga mamnuucay bacaha waxyaabaha deegaanka iyo dalka ka mamnuuca gacan biraan ku qaban doonaa. haddana awal waxba la gubi jirin ama la celin jiray annagu waxna celin mayno. waxa ka mamnuuca cidda la timaada aku taamila qaadato holaca iga dambeeya. maxamed Shiciir Axmed iyo Cabdinajiib Tayyib Ismaan TV qaranka Soomaaliland magaalada Balligubadle.